السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي وناكسن دمانتين وإذن سلامية وحرجينيا إنا في عنتهين الحمد لله أننا وفعنا هاي intaa ka bacdi dabcan dad qaar inaga madaxii waxay joogaan KL qaar kalena dalkii bay ku noqdeen yani iyo dad kale oo ila mid ah waxay joogaan JP marka dhamaantiin waxaan rajeynayaa fiicnaan iyo caafimaad iyo barwaaqo magacaygu waa Guleed Maxamuud Yuusuf Guleed Garaad waxaan jaamacadda UTM yimaaday 2018 bishii afraad dabayaaqadeedii waxaan ka tirsanahay oo aan dhigtaa Faculty of Engineering School of Electrical Engineering and dhigtaa intaa ka bacdi sidoo kale waxaan ahay reporter ama dhinaca saxaafadana waa skillkayga labaad oo reporter ayaan ahay taa waa ta isoo raacda electrical engineering-ka markaas introduction intaas ay ga ahaato intaa ka bacdi sababta aan isku soo sharxay ee aan xilkan culus u soo doontay haddii aan soo koobo waa laba qodob qodobka koobaad oo ah inaan arkay society-geena in u baahan yahay dardargelin xoog ah oo u baahan yahay in dardargelin lagu sameeyo dhinac kastaba ahaato iyo qodobka labaad oo ah ani shakhsiyan in aan jecelahay oo rabo society-ga in aan tayo xoog ah ay lahaato oo la tayeeyo oo maaragtay society-ga kale ee jaamacadda maaragtay jaamacadda ay dhigano society-ga kale ee ka jira in aynu ka sarmarno oo ay noqono dad isku duuban tayana leh markaas labadaas qodob ayaa ugu weyn sababta aan isku soo sharxay dabcan xilkan gudoomiyenimo ee jaamacadda UTM ee ardayda Soomaaliyeed markaas labada qodob halkaas aan kaga tagayaa waayahay walaalayaal iminka waxaan gelayaa dulucda warbixintayda ama presentation-ka aan soo diyaarsaday ka hor inta aan dulucda gelin waxaan rabaa oo aan jecelahay inaan idin sharxo overview ama guud ahaan horta ani ahaan mentality-ga aan rabo in aan ku shaqeeyo ama aan gudoomiye ku ahaado waa talo wadaag in aan la qaybsado walaalaha kale ee society-ga kulmisay in talo kasta oo aan jecelahay in aynu sameeyno in qof kasta oo mudan ama experience ha lahaado oo horey ha u soo qabto society-ga xilalkeeda kala duwan ama dadka kale ee jaamacadeena jooga ee Soomaaliyeed ee ardayda ah ee maaragtay ardayda ah ee dhalinyarta ah in talo kasta oo loo baahan society-ga in la qabto in aan talo geliyo qodobka labaad oo ah in waxqabad cusub qodobka labaad oo ah waxqabad cusub in aan la yimaado waxqabad cusub taasna ii sahlaysa aniga kaliya lama iman waxqabad cusub ee waxa weeye insha Allah aan idinka rajeynayaa haddii aan ku guuleysto xilka in aniga iyo dhammaanteen aynu isgarab istaagno wax wada qabsano waxqabad cusub la nimaano insha Allah iyo dardargelin dhammaanteen haddii la isgarab istaago oo qof kastana la soo dhaweeyo qof kastoo la yimaado talo la soo dhaweeyo waxa way dhammaanteen way wada guuleysanaynaa insha Allah marka taas weeye waxaan jecelahay oo kale society-ga inay base lahaato ay ku shaqeyso kaas oo ah isku duubni in ay ardaydu isku duubnaadaan waxa weeyaan qodob muhiim ah waxa weeyaan in haddii ardaydu midnimadooda laga shaqeeyo iyo xiriirka ka dhaxeeya wax kasta way hagaagayaan marka weeye qodobkaas qodobka labaad oo ah in wax la kala faa'iideysto oo ardaydu wax kala faa'iideystaan taanu waa wax muhiim ah weeye marka qodobka saddexaad ana ku dheeraanayn waxa weeye dhiirigelin in ardayda dhexdooda iyo society-ga memberka ka ah ardayda ka ah in isdhiirigeliyaan si aynu uga meel gaarno hadafka aynu u nimaanay jaamacadda UTM insha Allah aniga u galiyo dulucda waxaan rabaa inaan mid aan idinku sharxo horta marka hore aniga waxa u kala qaybiyay qaybo kala duwan society-ga waxaan jecelahay inay ku shaqeyso oo ah number 1 society-ga systemka society-ga qodobka labaad waxa weeye waxbarashada qodobka saddexaad waxa weeye hobbies or activities qodobka ugu dambeeya oo kuwan kale ka duwan wuuna jiraa marka waa afar qodob marka qodobkaas waa idin sharxi doonaa ugu dambeeya qodobada koobaad haddii aan ka gaarsiiyo maadaama waqtigu yahayo number 1 in aan sameeyo oo aan rabo in aan sameeyo
in aan sameeyo election committee ama guddida electionka markuu qof kastaaba xilkiis ka dhamaado dad kale oo walaalihii ah ayaa raba in ay xilkaas qabtaan marka in la sameeyo guddi waxaan hawsheeda taqaan oo ku hawlan oo experience u lahaan doonta oo waxa markaa taana waxa fududaanaysa in ardaydu isku doortaan si hufan oo fiican oo fudud oo smooth process so in aan sameeyo committee ama guddi kaliya oo khaas ah electionka marka waa qodob koobaad qodobka labaad waxa weeye in aan sameeyo strong financial team aad u adag oo dhinaca financialka ah waayo financial is very important, it's very crucial. So financial haddii laga fikiro waxyaalo cusub in lagu soo kordhiyo oo sidii hore maaliyadda ahayd laga bedelo waxa weeyaan de waxa kaliya soo ku socon kartaa maaragtay ku socon karnaa society-gaan waxa weeyaan dhaqaalaha yar ee aan iska ururino ayaa haddii si fiican loo maamulo si fiican looga fikiro waxyaalaha la gelinayo ee inputka la gelinayo waxa noo soo baxaya marka output fiican ama wax soo saar fiican ay noo soo baxaya marka qodobkaas waa qodob muhiim ah qodobka saddexaad waxa weeye in aan ku soo xulo departmentyada horta inta aan qodobka u gelin waxa weeye aan idin sheego waxa weeye qodobka saddexaad aan ka dhigayo waxa weeye in aan wax ka bedel ku sameeyo departmentyada society-geena marka waxa jira president, vice president iyo guddiyo hoos yimaada marka guddiyadaas ama teamkaas qof kastaaba uu rabo in maaragtay magacaabo inaan horta koob wax ka bedel ku sameeyo waxa weeye si wax ka bedel ku sameeyna tusaale ahaan waxa weeye in aan sameeyo for example qof u qaabilsan department u qaabilsan ardayda cusub soo dhaweyntooda ka shaqeyntooda la tacaamulkooda wax oo baahi la qabo oo loo baahan yahay in la sameeyo ardayda cusub waxa weeye number 1 oo ognahay ardayda cusub ka yimaadaan jaamacadeena UTM caqabado kala kulma marka waxa weeye caqabadaasi maaragtay qof kasta wuxuu jecel yahay qof kasta waxa jecesha walaalka la jecelo marka ardayda cusub ee imanaya waxaan jecelahay in aan wax caqabad ah kala kulmin marka jaamacadda imaadaan markaas for example waaye iyo waxyaalo fara badan oo raba inaan edit ku sameeyo gabagaba committee-ga ama guddi la magacaabo edit ayaan ku sameyn doonaa insha Allah waxyaalo loo baahan yahay weeye waxaan kaloo jecelahay inaan idin sheego qaybta waxaan ku jira systemka society-ga in teamka anigu aan soo xuli doono insha Allah dadku waa la fara badan yahay marka teamka soo xuli doono ma rabo inaan ku soo xulo noocyo kale laakiin aan ku soo xulo qofkan departmentka ugu magacaabaysid ma ku fiican yahay horta experience ba uu leeyahay ma ku fiican yahay waa muhiim waayo hadhow shaqadii ayaa fududaanaysa marka qof kasta inaan departmentka ama teamyada aan soo xulayo inaan ku soo xulo karti iyo dadaal marka insha Allah sidoo kale haddii aan tago qaybteedii labaad ee ahayd waxbarashada qaybta labaad ee waxbarashada waxaan jecelahay inaan ku soo kordhiyo in aynu samaysano kayd resources waa muhiim society-geenu sida ula socono ma laha laakiin kaydka maxaa ula jeedaa sida naqaana jaamacadda UTM waxyaalaha aad ku muhiimsan waa past exam papers ama notes oo aad loogu baahan yahay haddii kayd la sameyn lahaa oo qof kasta la oran lahaa at the end of the semester waxay soo heshay past exam paper ahaato notes ahaato ama waxyaalo kale soo dir oo drive loo sameeyo oo kayd la sameeyo waa aad iyo aad wax noo anfacaya dhammaanteen noo anfacaya marka taa waxaan jecelahay inaan ku soo biiriyo walaalayaal talabaad ee aan jecelahay waxa weeye qaybta waxbarashada in aan sameeyno xusuus qor maxaa loo jeedaa xusuus qor waxa uu la jeedaa like marka jaamacad ka qalin jabisay iminka ardaydii hore ee jaamacadda ka qalin jabiyay ma naqaano marka haddii laakiin xusuus qor la sameeyo waxa weeye qof kasta sawirkiisa magaciisa laga haweeyo waxa weeye wax fiican de is good positive thing right so qodobkan waxaan jeclaaday inaan ku soo daro oo like a book maaragtay ardayda naga dambaysa inagana aqoonsan doonto iyo waxaan ahayn iyo intaan ahayn iyo qof kastaaba iskuulku dhameeyay
waxaas iyo fikirkiisii. marka taana waxaan rabaa inaan kusoo biiriyo qodobka saddexaad oo kan ugu muhiimsan waxa weeye oo mid muhiim qodobka saddexaad oo mid muhiim waxa weeye interaction with societies, the other societies. in aynu la sameyno la tacaamul, la xiriirno, bal aynu eegno society-da kale si ay u shaqeeyaan. waxa laga yaabaa qaar inay naga da'wan yihiin oo jaamacadda UTM muddo badan ka aasasnaayeen. marka bal inaynu la tacaamul rasmi maaha mid afka inaynu ku sameyno si aynu uga faa'iidno wax. marka kaana waan jecelahay insha Allah. marka anigoo dheereynayn hadalka waayahay walaalayaal waxaan maraynaa qodobkii saddexaad oo hobbies and activities. so qodobkan waxa uu bixiyay magacaas qof kasta dabcan markuu firiga yahay wuxuu jecel yahay wax uu sameeyo is hobby, right? so your activity. marka waxaan rabaa horta qodobkan afar qodob aan kusoo koobaya maadaama waqtigu yahayo. qodobka koobaad waxa weeye laba qodob hore loo sameyn jiray oo number 1 in different kind of sports maaragtay la sameeyo oo ardayda ay isku yimaadaan oo ay sameeyaan. iyo qodobka labaad oo in la sameyn jiray trips. marka labada qodob wax la sameyn jiray laakiin anigu insha Allah waan xoojin doonaa iyo dhammaanteen waxaan rabaa inaan wada xoojino arrintaas. laakiin laba qodob kale oo aan jeclaystay inaan kusoo biiriyo ayaa jira dhinaca hobbies iyo activity-ga oo number 1 in aan sameyno seminaries lagu talagalay oo khaas ardayda Soomaaliyeed ee jaamacadda UTM kaas oo ka caawinaya in skillska ama xirfadaha oo ardaygu jecel yahay oo aynu jecelnahay in aynu kor u qaadano oo barano si ay hadhow inoo anfacaan. marka seminaries Soomaali kaliya u gaar yihiin waxa laga yaabaa arday badan baan nahay ma sha Allah. marka ardaydaas qof kasta wuxuu ku fiican yahay. marka in la isku yimaado seminaarada la agaasimo oo taana waxa ay base u tahay arrintii hore u sheegay society inay base u noqoto qodobadii waxa kamid in la kala faa'iido. marka qodobkaasna waxaan rabaa inaan kusoo biiriyo. qodobka labaad afraad noqonaya waxa weeye in aan sameyno forums, talk, in la sheekaysto, session la sameeyo oo ardaydu maaragtay aaraa weedaarsano oo aynu si cilmiyeysan u sheekaysano, isku weedaarsano waxyaalaha adduunka ka socda, toobkiya la sameeyo. oo ay jaamacaddu waxay leedahay meel arday lagu talagalay oo hoolis oo ardaydu inay wax kusoo talk ku sameeyaan lagu talagalay. marka arrintaana inaan ka wada shaqeyno saaxiibayaal iyo walaalayaal ayaan rabaa insha Allah. marka qaybta hobbies and activities were 4 afartaas laba hore ay u jireen, laba kalena aniga jeclaystay inaan kusoo biiriyo iyo qaar kale oo badan insha Allah oo aan kusoo biirin doono dhammaanteen. qaybtaas aan daba socdaay waxaan kaloo aan jeclaystay inaan bal idiin soo bandhigo in aynu sameyno waxaa jira jaamacadda UTM arday badan oo Soomaaliyeed oo jaamacadda ka qalin jabiyay oo hadafkii ay rabeen gaaray, iminkana jaamacadda ka qalin jabiyay oo shaqeeya. marka dadkaas waa dad muhiim waxaan nahay dhammaanteen arday dhigta jaamacadda oo engineering dhigta qaybihiisa kala duwan. ardaydaas haddii bal ka wara xiriir oo la sameeyo oo xiriir la bilaabo ardaydii hore ee jaamacaddana ka qalin jabisay ee Soomaaliyeed iyo ardayda iminka dhigata in la isku dayo in xiriir loo wada sameeyo waa wax shay aad u muhiimsan oo inagana naafacaya. inaga dawladda wali ma arkin wali jaamacadda ugu wada jirnaa waxbarashada ay wadnaa waxa marka jaamacadda qalin jabino waxa aynu sameyn doono waa inaga caawin doonta haddii aynu fursad u helno dadkii hore waxaan aynu iminka ku guda jirno dhameeyay iminka ku nool daafaca caalamka. marka arrintaana waan idin soo bandhigay insha Allah. marka qodobkaasna waxaan jeclaystay inaan ku daro barnaamijyadeeda. waayahay guntii iyo gabagabadii aad aan waxma haddii aan hadalkeedii ku dhameeyay waxa weeyaan actually ugu dambeyn ani ahaan laakiinse waxaan rabaa waqtiga oo haya inaan soo koobo insha Allah. marka sababta aan marka sharxay gudoomiyaha jaamacadda UTM ardayda Soomaaliyeed waxa weeye wax kale ma waa kalsooni aan idinku qabo. sababta koobaad ee ugu dhiirigelinaysa in aan xilkan isku soo taago wax kale maaha waa kalsooni weyn oo aan idinku qabo.
inaad ii codayn doontaan insha allah marka aad iyo aad baan idin salaamayaa aad iyo aad baa u mahadsantihiin haddiiba aad khudbadayda wada dhegaysateen aad u dheereed aadan ka raali gelinaya insha allah waxaan ugu dambeyn kaga baxay hadalkayga walaalahayga kale ee ila tartamaya haddii ay guulaystaan waan la shaqaynayaa si fiican ayaan ula shaqaynaya dhammaanteenna laynaga rabaa inaynu la wada shaqayno cid kasta oo guddoomiye inoo qabata xilka guddoomiyenimo ee jaamacadda UTM ee ardayda Soomaaliyeed marka dhammaantiin waan idin salaamayaa waxaan idin rajaynayaa caafimaad iyo nabad qab aad iyo aad u salaamantihiin salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu iyo waxaan idinka codsanayaa haddiiba aan idin sharxay waxyaalaha aan jecelahay inaan society-gana ka qabto oo aad ku qanacdeen in aad codkiina igu biirisaan oo i codaysaan maalmaha soo socda insha allah aad iyo aad u mahadsantihiin